haddaad i doorataan haddaad i doorataan kaabayaasha dhaqaalaha inaan soo celino si dhalinyarada Soomaaliyeed oo shaqo la'aanta haysato ay shaqooyin uga helaan haddii aad doorataan waxaan afartayda sano shaqo abuur kala duwan u samayn doonaa ugu yaraan 100,000 oo dhalinyaro Soomaaliyeed ah haddaad i doorataan waxaan kaloo rabaa inaan dhameystiro wada hadallada u dhaxeeya walaalahan Soomaaliland iyo dawladda dhexe haddii aad doorataan waxaan bilaabaynaa wada hadallo dhab ah oo aan la galno walaalahan Soomaaliland haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurtu waaweyned yaan gadaal ka gali jid la xiraayo ma jiraayo markaan shabaab ka adkaano markaasaan baawarta ku raaxaysanayna haddii aad doorataan waxaan dalka ka xoreyn doonaa al-shabaab inta aanay dhammaan muddo xuleedkaygu haddaad i doorataan waxaan ku sameynaynaa tira koob ciidanka aan haysanno oo howlgeli kara waxaan siinaynaa tababar ciidanka waa inaan siino daryeel haddii aad doorataan waxaan ballan qaadayaa inaan dhammaystiro dib u habeynta ciidanka haddaad i doorataan waxaan bedelayaa dhaqanka siyaasadeed ahaa in xil la iska saarin nolosha amniga xildhibaanada ee kaliya la xasuusto maalinta mooshin loo baahdo ama marka cod laga rabo waa dhaqan xun weyn haddii aad doorataan waxaan ku kordhin doonaa gunnada xildhibaanada ugu yaraan 30% sidoo kale waxaan gunnada xildhibaanada ku kordhin doonaa gunno daboosha kirada guriyaha xildhibaanada waxaan ilaalin doonaa xasaanada xildhibaanada xildhibaan walba iyo qoyskiisa waxay heli doonaan caymis caafimaad oo ah isbitaalada dalka gudihiisa iyo dalka dibadda